boqolaal qoysas ayaa isaga barakacay guryo ay ka deganayeen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada madaxda gobolka Hiiraan ee Beledweyne kadib markii uu ku soo fatay qaar ka mid ah guryahaasi webiga Shabeelle saacadihii ugu dambeeyay kuwaas oo inta badan deegaansaday deegaanka Ceel Jaalle ee duleedka magaalada iyo waliba qaybo ka mid ah xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka heer gobol iyo degmo waa iyagu kormeeray goobaha webiga uu ka fatay iyo halka ay degeen qoysaska ka barakacay fatahaada biyaha webiga Shabeelle Ismaan Dhicis Owdhugo gudoomiyaha maamulka degmada Beledweyne iyo gudoomiye xigeenka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali oo warbaahinta la hadlay kormeerkaasi kadib ayaa faahfaahin ka bixiyay goobaha ay tageen iyo waliba nolosha qoysaska ka barakacay fatahaada webiga Shabeelle waxaana ay ku dhawaaqeen inay bilaabatay fatahaada webiga Shabeelle xaafadaas Howlwadaag iimeelihii darad biyaha oo xaafka ay mareen oo qaybta maartay xareed ahayd ayaan soo marnay haddana waxaan joognaa biidna kariim buundadii maartay la dhihi jiray dhagax jibisaan joognaa xaafadda Xawataako marka barakac badan aan soo aragnay xaafadan Xawataako meelo badan oo laga barakacay ayaan maartay aragnay xaafadahan dhex galnay wax badan aan dhex wareegnay xaafadaas maartay Xawataako say u badan tahay waa laga barakacay insha Allah marka waxaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo dadkaas inaan oo tabaalaysan wax loo qabto barakaca insha Allah biidna kariim waxaan aan maartay aan u sheegaynaa caalamkana u sheegaynaa hay'adaha oo maartay wax qabtan oo hadda waxaan taaganahay xaafadda Xawataako meeshaan bundu kuwaad qaybta dhexe Xawataako waa arkaysiin biyihii ilaa hadda dadka dhinacan degan oo dhan iyo qaybtaas xaggaba waa la qaxay lama joogo biyihii waa soo fakadeen macnaha maanta waxaan muujinaynaa oo aan sheegaynaa oo cilaaminaynaa inay bilaabatay fatahaadii webiga Shabeelle ee Beledweyne inay bilaabatay oo webigii uu soo deebiyay ay soo fakadeen taasaan maanta cadeynayna meelaha aan soo marnay Howlwadaag aan tagnay waa soo aragnay hadda Xawataako aan joognaa meelo badan aan soo fiirinay meeshii ugu dambeysay aan joognaa marka awal waxaan muujinaynaa cabsiyaa jirtaan dheheen hadda waxaad moodaa cabsidii in laga gudbay oo fatahaadii bilaabatay sidaa darteed marka hay'adaha samafalka oo warka sugayay maamulka ayaamahan aan la shireen gudoomiyana hore ula shiray waxaan u sheegaynaa in shaqadii bilaabatay barakicii bilawday wabigii soo fakaday shaqa la iska rabo maamulka doorkiisa qaato hay'adaha doorkooda qaataan Sheekh Xuseen Cismaan Cali gudoomiye xigeenka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan ayaa ku amray hay'adaha samafalka ee ka howlgala gobolka in gargaar degdeg ah ay gaarsiiyaan dadka ka barakacay fatahaada biyaha webiga Shabeelle isla markaana digniin adag u diray hay'adii ka soo jawaabi wayso baahiyaha bulshada magaalada Beledweyne adahun waxa laga rabaa meesha Ceel Jaalle waa la aaday haddana waa lagu sii socdaa wili ilaa hadda mas'uul ma hayno wili ilaa hadda biyo ma hayno baraag ma hayno wili ilaa hadda bixii iimayl dhaxanta laga gali lahaa iyo guriyaha laga dhisla ma hayno hay'adaha waxay amar ku qabaan maanta saacadan laga bilaabo inay shaqadooda qabsadaan meelsha tagaan bixii geeyaan teedooyinkii geeyaan mas'uulihii dhisaan baraagihii dhisaan hadday ka daba maraan oo shaqadooda ay qabsan waayeen arrin kale gaar ay noqonaysaa marka si gaar ah u xisaabtami doonaan waa dhamaatay sheekadii hore waa ka duwan tahay dadku dhibaato soo foosartay marka waxaan leeyahay hay'adaha samafalka waa inay doorkooda ka soo baxaan sidoo kale Sheekh Xuseen Cismaan Cali oo ka hadlayay doorka maamulka kaga aadan sidii gurmad loo gaarsiin lahaa qoysaska ka barakacay fatahaada biyaha webiga Shabeelle ayaa waxa uu yiri anaga doorkeena waxa waaye daftarkeena waxa waaye inaan jaabaha gacanta la geliyo lacagaha hadda meelaha naga soo intiso bariyahan aan roobta wixii soo galo in halka lagu wajaho oo hay'adihii qayb laga qaato oo aysan maamulka dhihin annaga waa iska fadhinayaan macneeda ma aha dhaqaalaha gobolka soo gala hadii ay dhaxta dhanka leeboorka hadii kale ay tan tahayba waxa ka muhiimsan danaha gaarka arrimaha amniga iyo arrimaha barakacayaasha labadaas ugu muhiimsan labadaas waa in amniga lagu bixiyaa gacan laga siiyaa ciidanka iyo dadkii marka halka tagay wixii anaga xataa sii qaban karnaa sii qabano ma ina hay'adaha kaliya isku dhaqaalaha gobolka soo gala wixii ba noo yimaado ilaahay noo calfo shaqadana nooga miisa ciidamada amniga ku daryeelno iyo barakacayaasha wax qabano dhinaca kale qaar ka mid ah qoysaska ka barakacay fatahaada biyaha webiga Shabeelle oo warbaahinta la hadlay ayaa codsaday in gargaar la soo gaarsiiyo sida biyo cunto iyo waliba hooy ay ka galaan cadceeda iyo waliba qabowga dhacaya xilliyada habeenkii magacayga Cabdi Cismaan Qasaay aliira biyana qaadi hoo aqal ma haysti aqalkayga abar waa biyana soo galay biyana soo qaadi muslina biyaha iga soo dhax bixiyay aniga indana ma qabi
ما كبيحي كري إسلانا يقسو بحي عراف فارح علي أنا وكسو قحي قحوتي قبولو أرح كام قبولو أرح لبيا 8 عرور أن وطا أن قريب أمشي إيو دقاكي إيو ألابتي أن تبرنكو سوق هذا أن قربكو قرأهاي برتن دولة محان أنبرك عسنينا وهيدها أنك عسنينا برتا أنكو سوغننا هاي محاواي كام كعيل جال بيابان أباهنا هاي بعان أباهنا هاي بادان أباهنا هاي وحكستان أباهنا waxaan u baahannahay biyo iyo baad bacyo roobka naga celiyo aan u baahannahay anigoo 15 caruur ah haasto maxaan naga darna musqulo waa rabnaa musqulo biyo baad aadan macooba liiraa waa baahannahay biyo ana qaadeen baadiyaanka soo guurni meelan aan koobsan iimaanan degna iimaanan waal iyo adduun ma leh أنا مقعي وحلي عبد الله عثمان آذن وحن ماشي أنا وحكون هاي بركع وحن كسو بيها كسو بركع عني محمد الجور هاي كام كان ده كسو بركع أول ولا حاولوا دقيقة كان بيبحثان إيوه فتهادان إيه باتانا سوق حسي خالد محمد إسماعيل كعساه تلفزيون كعالمي صومال نيوز بلدوين